Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, dear students. This is Teacher Adam and this is lesson 80 in your own words for writing and discussion. Edward's apartment building. So أرضي شرفت بدن إن شاء الله أن 10 كنسيدتنات أنت ما كهذا دونا مركا وحوية أن و10 قرالة مركا قرالوية يقص شقين يا assignment يا homework وحوار الذين دروا دونا وحل الذين دروا إن شاء الله قص شقية واتسابكي وصدرة marka. Let's get started. أنا بلون 10 in your own words adigoo isticmaalaya erayadaada adigoo wax qoraya marka in your own words waxa weeye qor Amy's apartment building waa tusaale mid noocan oo kale ayaa lagaa doonaya inaad qorto sheeko aad ka samayso sida taaba sheeko looga sameeyay for writing and discussion. Edward's apartment building. Edward dhismaha uu degan yahay. Edward's apartment building is in the center of town. Edward is very happy there because the building is in a very convenient place. Using this picture, adigoo sawirkan isticmaalaya, tell about Edward's neighborhood. Edward xaafadiisa ka sheekee. Marka sheekaad samaynaysa sida Amy's apartment building oo kale ka sheekee adigoo sawirkan isticmaalaya sheekada qor ditana send it to me on my WhatsApp. So listening, this is listening. 10kan waa 10kan ku xiga waa sheekada dhegeysanaysan wadna ka soo shaqeynaysaan marka waa qaybtan iyo qaybtan. Pronunciation ku dhawaaqid. Rising intonation to check understanding. Rising intonation waa marka wax la akhriyayo marna kor baa loo qaadaya marna hoos buu dhigmaya. To check understanding understanding waa faham way checkna waa baadhid marka si lagu fahmo intonationka marka kor loo qaadayo waa inaad kor u qaadaa waayo kor hadii u qaadi weydo waxa su'aal ma noqonayso waxay noqonaysaa waxaad iska tiriun noqonaya marka intonationka codka kor loogu qaadayo weeye si wixii loo fahmeynay su'aal yihiin. Listen then say it. Dhegeyso dadana ka daba dheh marka markaan aqriyo ka daba aqri. 2 bedrooms, 5 closets next to the bank on Main Street. 2 bedrooms, 5 closets next to the bank on Main Street. Say it then listen. Dheh haddana dhegeyso. 3 windows, 20 floors across from the clinic on Central Avenue. In your journal waan soo sheegay waa buug yar oo dhacdooyinka maalintii aad ku qorto weeye marka buuggan waa inaad leedahay journal waa inaad u samaysaa oo waxyaabaa qor lagu yidhahdo aad qorta. Write about your apartment building aad adigu ku jirto wax ka qor sida Amy baa iga qortay apartment building iyadu ku jirto. Or home ama gurigaaga ka hadal ama apartment buildingaaga ka hadal hadba meesha degan tahay ka hadalo sheeko ka samee. Tell about the building marka dhismaha aad ku jirto ka sheeke and the neighborhood iyo xaafadda aad u degan tahay ka sheeke. Chapter summary waa khulaaso. Chapter waa cutubka khulaasadiisa. There is marka hal shay u yahay baa loo isticmaalaa. There are waxaa loo isticmaalaa markay badan yihiin. There is one window in the bedroom. Hal daaqad ayuu guriga qolka hurdada leeyahay. Is there a laundromat in this neighborhood? xaafadan may leedahay laundromat meel dharka lagu maydho? Yes, there is. way leedahay. No, there isn't. male marka there is iyo there isn't. There are 2 windows in the bedroom. daaqadu waxay leedahay qolka hurdada wuxuu leeyahay laba daaqadood ayuu leeyahay. There are 2 windows in the bedroom. qolka hurdada wuxuu leeyahay laba daaqadood ayuu leeyahay. Are there any children in the building? Dhismuhu wuxuu leeyahay marka dhismooyin qaar ciyaal bay leeyihiin marka are there any children in the building? wax ciyaal ma joogaan dhismaha. Yes, there are. way joogaan. No, there aren't. may ma joogaan marka haday joogaan yes, there are. No, there aren't. There are, there aren't. Yes, there are. No, there aren't. Singular plural marka xaggan aqrino kunaan aqrino marka hore. Singular waa mufrad, plural waa jamac. Singular waa shayga markuu hal yahay, plural waa markay badan yihiin. Introduction. There is 1 bedroom in the apartment. hal qolo hurda ayuu guriga leeyahay. There are 2 bedrooms in the apartment. marka laba qolo hurdo ayuu leeyahay apartmentka ayuu gurigu leeyahay. Prepositions waa meelaye. It's next to the bank. bangiga ayuu ku xiga ayuu ku dhigan yahay ama u dhow yahay ama ku xiga iska dheh. It's across from the movie theater ka meesha filmaanta lagu daawado ayuu yahay kasoo gudubkiisa markuu kan halkan yahay
wadad ka talaabeysa ka kala aad u gaadho. It's between the library and the park. Between waa u dhaxayn. It's between the library wuxuu u dhaxayaa library-ga iyo park beerta lagu nasto labada ayuu u dhaxayaa. So this is the library and this is the park and it's here. It's around the corner from the hospital. Hospitalka marka kooniisa la soo galo ayuu ku yaalaa. It's around the corner from the hospital. Key vocabulary. And erayada ugu muhiimsan aad cutubkan kusoo dhigatay places around town. Meelaha places waa meelo. Places waa meelo. Meelaha magaalada ku yaala. Around town waa magaalada dhexdeeda. Airport. Bakery waa meesha roodhiga lagu dibo roodhi leh. Bank waxa weeye bangiga. Barber shop waa raysle ama timajare. Bookstore waa meesha buugagta lagu iibiyo. Bus station meesha basaska laga raaco. Cafeteria waa meel laga shaaheeyo laga cunteeyo. Church waa kaniisad. Clinic waa maxaan ku rahday waa dhakhtar ama rug caafimaad iska dheh. Clothing store waa meel dharka laga iibsado. Department store waa dukaan weyn oo waxyaabo badan dukaamo kale yaryar ay ku sii dhex yaalaan. Soomaali kale maxaa lagu yiraahdaa idinka idin sheegi doona. Drug store waa farmasiye yar. Farmasiyaha weyn ma farmasiye ma. Drug store waa meel yar oo dawooyinka lagu iibiyo. Farmasiyaha weyn yahay drug store uu yar yahay. And antibiotics iyo wax painkillers iyo waxyaabo yaryar baa laga helaa. Fire station waxa weeye waa goobta maxaan ku rahday dabdamiska. Fire station. Gas station waa meesha gaaska ama petrolka waa goob shidaal iska dheh shidaalka meesha laga shubto. Gaaska waxa weeye gasoline baa la soo gaabiyey. Gas waxa laga soo gaabiyey gasoline waa like petrol. Mareykanka waxay yiraahdaan gasoline ama gas. Britishka ama Ingiriiska waxay yiraahdaan petrol marka isku mid weeye. Waa goobta shidaalka weeye. Hair salon waa coiffeur ama meesha timaha dumarka maxaan ku rahdaa lagu hagaajiyo. Health club waa meel gym. Health club waxa weeye it's like a gym waa meel jimicsi waxa loo tago. Hospital waa dhakhtar ama hospital. Hotel waa hotelo marka waa goob laba waxay leedahay chief iyo waxay leedahay cunno meel wax laga cuno. It has a restaurant and a lodging. Laundromat waa meel dharka lagu sameeyo. Mashiinooyinkii baa yaala. Like we've got washing machines there. You go there and then you pay some money and then you just wash your clothes there. Library waa maktabad weyn oo dadka wax ku akhristaan. Movie theater waa meel filmaanta laga soo daawado. Park waa beerta lagu nasto. Police station waa xarun police. Post office we talked about it. Restaurant, school, shopping mall, supermarket, train station, video store. Zoo waa goobta xayawaanada ay ku xariisan housing waa guryaha ayaa laga helaa intan. Air conditioner waa AC oo lagu qaboojiyo guryaha. Apartment building dhismo. Bus stop baska meesha ku istaago uu ku joogsado. Baska marka uu soconaya goob uu ku istaagaa jira. Closet waa cover ama maxaan ku rahdaa it's like cupboard like we talked about that before. Armaajona waa la yiraahdaa umaleynaya. It's like yeah. Elevator waa wishka. Dhismooyinka aadka u dhaadheer dabaqyada dhaadheer elevator bay leeyihiin wish bay leeyihiin. It's also called lift. Qofka meel buu taabanaya dadna kor bay geynayaan. Fire escape marka guryaha dabaqa ah ee dhaadheer waxay leeyihiin meel maxaan ku rahday dab hadduu ka dhaco meel laga cararayo leeyihiin. Fire escape casharada kusoo dhiganay waa inta sawiraantiisa. It's called fire escape. Floor waa sagxadda. Jacuzzi is like one soo sheegaysna jacuzzi waa meel maxaa ku lagu maydho. It's inside the bathroom. It's big. Yeah. It's like a bathtub. Yeah. It's a special bathtub. Mailbox is where you put the letters or mail letters. Refrigerator waa talaagad. Stove shoolad. Superintendent kormeere. Washing machine is just washing machine that you wash your clothes in there. So qasaalad. Dear students, that was a very long lesson. I'll stop my lesson there. Dear students, our lesson ends there. I leave you with Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Till we meet next time. Bye bye.